gudoomiyaha degmada Lughaya Cabdilaahi Cali oo maanta la hadlayay qaar kamid ah warbaahinta ka howlgalay magaalada madaxda gobolka Hadley Boorama ayaa waxa uu si guud uga warbixiyay xaaladda ammaan ee degmada Lughaya ee deegaanada hoos yimaada oo muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa muran xooggan 6 goobood hoos yimaada degmada Lughaya ugu horeyn gudoomiyaha oo ka hadlayay xaaladda guud ee degmada Lughaya ayaa waxa uu yiri xaaladda guud ee degmada Lughaya oo mid aad u degan dadgeliyahaana aad u fiican tahay wax rabshadaay wax dhibaatooyina oo ka jira ma jirto inkastoo hadalhayn badan oo dadka ay jirto dhinaca lixdii goobood degmada ka xidhnaa iyo in lagu qorsho uu jiro ee lagu keenayo la sheegay sanado kuntii anoo kama maraan qorshahaas wax kala socno laga soo wareysiyay ma jirto laakiin ilaa hadda wax goobahaas soo gaarayna ma jirto waxna dadgeliya daro ka dhacayna ma jirto xaaladdu aad bay u degan tahay Cabdilaahi Cali oo Nuur gudoomiyaha degmada Lughaya oo hadalka sii watay ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay deegaan la doonayo in la hoos geeyo gobolka Maroodijeex runtii horta maanta beelaha Soomaaliland qaabka maxay inay gobolada iyo degmooyinka beela kuma salaysna nidaam dawladeed ku salaysan yihiin beeshu argeysana way deegi kartaa gooramana way deegi kartaa laakiin qasab ma aha in beeshu haddii ay doonto inta ay degto in gobol looga dhigo xukuumaddu kuma shaqaynaysa hadafka beelaha dana misanahay ma shuruucda dalka ugu yaala tahay dalkana saadogtiin dastuurka waxa ku cad in lixdii degmo ee Ingiriiska xuduudooda waxba laga bedeli karin marka cid jebin karta qodobka dastuuriga ma jirto sidoo kale gudoomiyaha ayaa waxa uu meesha ka saaray inay jiraan ciidamo kala duwan ka tirsan ciidanka qaranka oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay badda ku soo rodeen deegaano hoos yimaada degmada Lughaya ee gobolka Awdal ma jiraan wax ciidamo halka badda ku soo rogay marka hore waxa jirtay goob kamid ah lixda goobood oo ciidanka qaranka uu fadhiisin ku lahaa muddo 2 sano fadhiisintiisa inuu ciidanku fadhiyaa wixii awal ka shaqayn jiray inuu ka shaqeeyaa wax cusub oo runtii ciidanku ka howlgalo halkaas ma jirto wax dhibaato ka qoray ugu dambeyntii baayirka degmada Lughaya Cabdilaahi Cali oo Nuur ayaa waxa uu sidoo kale meesha ka saaray inay waxba ka jireen isla marhaantana ay maamul ahaan waxba kala soconin deegaano wasaaradda maaliyaddu ay ku soo rogtay xayraad cashuur runtii kulayaan arintaasi waxaadoo ninka idinka iftiimiyo ma jirto hadalhaynta dadku way iska badan tahay laakiin wasaaradda maaliyadda waxaan hadda ku eedayno uma hayno weli Mustafa Caraale Boorama.